أصحاب تجربة wanaagsan kusoo dhawaada Runshaag Media Network asxaabay maanta waxaan fiirinaynaa nidaamyada hogaaminta ama leadership models kala duwan leadershipku wuxuu leeyahay modelo kala duwan inta badan dadka Soomaaliyeed waxay maqlaan dictatorship ama dictatorship democracy ayaan maqalnaa inta badan maxaa loola jeedaa maxay kala yihiin iyo guud ahaan nidaamka Soomaaliya ee qaadatay ee federaalka ama federal systemka ayaan isla fiirinaynaa daawadayaal kusoo dhawaada Runshaag Media Network haddii aan ka bilaabo marka hore zero leadership waxa la yiraahdaa jiro adduunka waa hogaamin furan oo hands off oo waxa zero leadership waxa la yiraahdaa la baqsay waaye ama la saqfay waa faqansay waaye waa Francis waxa waaye hogaaminta noocan waxa la yiraahdaa hands off gacmaha la laabtaa waxa la yiraahdaa dadka waxay ku wanaagsan ha qabtaan ha shaqeeyaan waxa qabtaan wixii halaabayana wax naga gala malaha marka waxa halaabo wax badan ayaa halaabo dayacaadaas ama negligence-ga la sameeynayo ee macnaha damiir la'aanta waxay keentaa in wax badan ay halaabaan oo wax badan ay burburaan waana midda maanta Soomaaliya haysato Soomaaliya hogaaminteedu maanta waa laba nooc daawade oo qayb ka ah hogaaminta caalamka ay qayb ka tahay labadaas nooc marka waxa jiro marka laga hadlayo leadership models kala duwan Soomaaliya laba qayb ku badan labada qayb ku badan waxa waaye zero leadership waa midaan hadda aan ku dhahayo la baqsay oo faqansay waaye Faransiiska iyo leadership kala yiraahdo transactional leadership waa mid ku dhisan maxaan cunaa maxaan macaasha maxaan helaa maxaan booba maxaan faa'iida maxaan muxuu ahay kala goostaa maxaan macaashna mid ku dhisan waa marka Soomaaliya maxaan ku yiri laba hogaamin model ama leadership model waxa jiro laba nooc oo hogaamin ayaa Soomaaliya ka jirto waxayna ka mid tahay labadan model waxay ka mid yihiin modelada hogaaminta ay ka mid yihiin Soomaaliya aad ay u badan tahay iyo guud ahaan Afrika waana midda transactionalka oo maxaan cunaa maxaan faa'iida maxaan kala goostaa ku dhisan macaashka iyo midda zero leadershipka oo aan ku dhahay hands off gacmaha la laabana wixii burburay ha burburaan wixii la faa'iida ha la faa'iido wixii khasaaray ha khasaaraan wax naga gala malaha marka taas waxay keentaa in wax badan oo aan wax laga qaban karin ay burburaan oo burburka sida marka hore loo qorsheeyay si ka baaxad weyn oo u dhaco tusaalaha aan ku sii karo daawada waxa ka mid ah maanta Soomaaliya waxaan ognahay qofka hogaamiyaha u soo doonto xukun inuusan soo doonan inuu dal dhiso oo dad hogaamiyo oo aqoon mataqaanaa siyaadiyo oo caafimaad ka shaqeeyo oo waxbarasho ka shaqeeyo oo amni ka shaqeeyo oo jidad dhiso oo magaalooyin qurxiyo oo master plan u sameeyo magaalooyinka oo kheyraadka dadka u soo saaro oo horumar bulsho oo keeno uma soo doonto mana ka shaqeeyo wuxuu soo doontaa ama wuxuu la yimaadaa hogaaminta la yiraahdo transactional leadershipka hogaaminta wax kala goysiga iyo wax kala faa'iidka wuxuu soo doontaa marka hogaamiyahaas oo kursiga u soo raadsado inuu wax ku macaasho inuu xoolo ku goosto inuu ku naaxo inuu ku bulaalo inuu ku barwaaqo that's why marka aan u aragnaa inta badan siyaasiyiinta Soomaalida marka lagu jiro campaignada electionka ololaha doorashada inay afmacaani la soo fadhiistaan khudbado dhiigga iyo dheecaanka saameeyo dhuuxa iyo lafaha naga galo dhawuhu ku raaxaystaan laabta ku degto ay noo sheegaan markaas waxaan dareennaa ama aan maskaxdeena ka soo wardaysanaa dal qurux badan ummad barwaaqowday cadaalad iyo sinaan kheyraad la soo saaray amni iyo xasilooni istiqraar iyo sacaado iyo liibaan iyo duma'niino iyo farxad ayaan maskaxdeena kuma sawiranaa hogaamiyuhu markuu yimaado kursiga
waxaa dhaco vice versa ama wixii uu sheegay wax anti ku ah oo lid ku ah ayuu sameeyaa. dadka Soomaaliyeed marka inta badan political tricks ama khiyaanada siyaasadeed hogaamiyaasha Soomaalida waa ku soo caana maaleen ilaa maanteena ku caana maalayaan, laakiin dadka Soomaaliyeed waa ay fahmi waayeen sirtaas. runtii way adag tahay in la fahmo marka hore, maxaa yeelay qof cusub oo waji cusub ah oo ku yimid oo aan laga yaabo marka hore inaad ku taqaanin wanaag ama aadan runtii xog badan ka hayn oo kuu muujiyey inuu wax wanaagsan qabanayo, waad aaminay. kadib waxaa isbedelaya marka political culture, dhaqanka siyaasiga ayaa isbedelaya qofkaas. That's why markasto aan aragno hogaamiyaha warka wanaagsan sheegay markuu kursiga tago sanadka hore oo joogo, wixii ka dambeeyo dhamaadka sanadka hore wixii ka bilaawdo inuu isbedel la yimaado iyo hab dhaqan aan lagu aqoon oo dhamaantood siyaasiyiinta Soomaaliya soo maray ay wada ahaayeen. marka taas waxay u baahan tahay in laga sameeyo research iyo baxdi iyo daraasad waxyaabaha root cause-ka ee sababa arrintaas in la daraaseeyo kadibna la helo xalkii. waa muhiim. markii suuradan hadda markaa fiiriso akhri kaliya ma noo sheegaysay, waxay noo sheegay inaad wax akhriso, inaad wax qorto, markaa wax akhriso oo note qaadato kadibna aad baxdi iyo research samayso. marka waa muhiim in arrinta lagu baraarugo. marka taas waxaan ku iri waxa waaye waa transactionalka leadershipka, hogaaminta maxaan faa'iidaa maxaan macaasha ayay tahay taas. waana midda hadda aad aragtaan markay dad wafdi Soomaaliya oo aadaya dibadda la yiraahdo waxaan aadaynaa hay'ad hebel aan aadaynaa ama waxaan la kulmaynaa World Bankiga ama IMF-ta ama United Nations-ka, maxaan ka soo qaadanaa, maxaan ka helnaa, maxaan ka faa'iidnaa, maxaan Soomaaliya magaceeda ku soo qaadanaa oo kala goosanaa. oo aragtaan in wasiirkii tagay shirkaas dhaqaalihii Soomaaliya loogu talagalay inuu qayb soo goosto, markii inta la socotana qayb kala goosato, markuu wadanka yimaadana agaasimaha wasaaraddaas iyo dadka uu tunka weyn ay sii kala goostaan, wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowladana ay la sii goostaan. saa marka wixii ummadda Soomaaliya loogu talagalay loo kala tuurto. waa transactional leadership way ama politics, hogaaminta iyo siyaasadda macaashka ku dhisan waa. tan kale waxa waaye zero leadership. tan waxaan ku dhahay waa hands off, gacmaha la saarana indhaha laga daawana. sababta maxaa waaye qofka hogaamiyaha ee kursiga yimaado kama fakarayo wasaaraddan hay'addan aad timid qof ku habboon ee shaqadan qaban karo inuu keeno kuma fakarayo. wuxuu ku fakaraa siduu u naaxilahay qaraabadiisa, walaalihiis, xigtadiisa, muxuu ahay saaxiibadiis, cidda uu yaqaano iyo asaga naftiisa iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa siduu u naaxilahay ayuu ka fakaraa. that's why marka hadda aan u aragno inta badan right man right position inaan la helin oo aad aragtaan qof aan aqoon u lahayn ama khibrad u lahayn shaqo qaran in loo dhiibo oo dadkii aqoonta u lahay muxuu ahay because maxaa yeelay fas'alu ahla dhikri ayay ahayd in kuntum la ta'lamuun. marka taasi ma dhicin, waxaa dhacday bilcagsigeeda dhacay. marka in aad aragtaan in dad aan ehel u ahayn shaqadan la qabanayo oo aqoon u lahayn oo khibrad u lahayn oo capacity-geeda aan lahayn in la keeno oo aad la yaabtaan kadibna ay wax kharibaan oo wax ku ciyaaraan oo maaragtay muxuu ahay musuq nooc kasta ay sameeyaan oo cid yac ka dhehaysan jirin, kadibna wixii halaabo ay halaabaan sidii wax loo maleynayo si ka badan ay wax u halaabaan ee cid isweydiisana aysan jirin. maalin kastaan aragnaa, mar kastaan aragnaa, dowlad kastaan ku aragnaa. labadaas hogaamin waa labada ku badan Soomaaliya, waa serial leadership iyo transactional leadershipka. hogaaminta ku dhisan macaashka iyo midda eberka ee la saqfeeda oo Faransiiga aan ku sheegay
labadaas waa midda labadan ugu badan. Hogaaminta kale waxaa waaye democracy-ga. Intaanan democracy-ga u gelin, Soomaaliya waxay qaadatay hanaan la yiraahdo federal system. Horta federaal waxaa loogu talagalay dad kala dhaqan ah, kala af ah, kala diin ah, qowmiyado kala duwan in la isku haayo oo wax loo wada qaybiyo oo kheyraadkooda ay ku heshiiyaan oo si siman loogu qaybiyo oo isku hayntaas guud oo u dhaxeeyo oo nidaamka u noqdo nidaam isku haaya dadkan kala duwan ee kala dhaqanka ee kala faniini karo. Soomaaliya oo dad isku dhaqan ah, isku af ah, isku diin ah, isku isir ah, markii xataa la fiiriyo xagga DNA-da E1B1 isku ah habla groupka in muxuu ahaay ayaga hal qaanad ku jiro, hal seera ku jiro, in loo keeno nidaam federaal ah oo lagu kala qaybiyo waa dhibaato inteeda la eg. Waxa laga cararayo waxay ahayd central system ama government, dowlad dhexe ayaa laga cararayo. dadka looma sameyn central system dhexda ka furan, looma sameyn ee waxaa la dul keenay system aysan qaadi karin oo aysan xamili karin oo loogu talagalay ummado kala duwan in la isku haayo. Marka wuxuu keenay systemkii dadka noocaas ahay oo markii horeba isku dili jiray qabiil iyo qabyaalad iyo daaq iyo muxuu ahay deegaan isku haysan jiray iyo xuduud, inuu sii kala fogeeyo oo kala faniiniyo oo ay noqdaan dikreeto meel taagan, dekad meel taagan iyo warqad meel taagan iyo qalin ay noqdaan oo nin walba yiraa waa taliyey, amaraan baxshay, haddaan la qaadan amarkayga, haddaan taladeeda la qaadan cid aan warka dhageysanayo ama wax ku darsanaa ma lahan, anaa madax bannaan, xoraan ahay, saan rabaan yeelaa, saan rabaa u dhaqmaa, taladeedaa socoto, amarkaygaa shaqeeyo, qofkii isu kay waalo xuduuddeedan ka xirtay iyo seeradeeda. That's why hadda aan u aragna inta badan dowladdii dhexe iyo federaalku maamul goboleedyada ama isteedyada inay isku dhacaan, safaaradaha kala qaataan, isteedku oo dhaho muxuu ahaay xiriirkan u jaray, dowladdu ay tiri xiriirkan u jaray, mar dowladdu ay weerarto, mar isteedka uu yiraahdo muxuu ahaa iska caabinaan ku jiraa iyo inaan dowlado kale u raadsado garab iyo saaxiibtinimo iyo taageero. Marka waa dhibaato inteeda la eg. midda kale hogaamintu kale waxay tahay hogaaminta la yiraahdo ama democracy waxa aad la yiraahdo afqaad dimuqraadiyadda ee ay noo keeneen galbeedku noo keenay. ayaga dhexdooda markaad fiiriso political systemskooda kama muuqato, kuma dhaqmaan, iskuma maamulaan, dastuurkooda kama mid ah. laakiin annaga khaasatan Africa dastuurkeediyaaba laga dhigay oo base looga dhigay. maxaa yeelay dastuurku waa social contract, ma ahan wax annaga muxuu ahaay aan keensanay heshiiskeena oo ka turjumaya qiyamka iyo value-ga iyo principleska mabaadi'da waxaan aaminsanahay ma aha, waxna loo keenay oo loo minguuriyay. marka dimuqraadiyaddu marka dhankeena la joogo dunida saddexaad iyo Africa waxay ka tahay human right in lagala hadlo xuquuq aadan, women's quota dumarka, tirada qoondada haweenka dumarka ee siyaasadda iyo kuraasta golayaasha kala duwan, sharci dejinta baarlamaanka, wasiirada, waxaas oo dhan in lagala hadlo gender balance waxa la yiraahdo sinaanta ragga iyo dumarka, in lagala hadlo waxa la yiraahdo xaqa gabadha, in lagala hadlo waxa la yiraahdo voice of the voiceless, codka kuwa aan codka lahayn, in lagala hadlo in muxuu ahaay wax kasta oo adiga ka hor imaanaya mabaadi'daada iyo dhaqankaada iyo diintaada lagu saleeyo, in lagala hadlo in lagu yiraahdo free and fair election, doorasho xor iyo xalaal ah rabnaa, in lagala hadlo in la yiraahdo accountability iyo transparency ayaan rabnaa, daahfurnaan iyo isla xisaabtan ayaan rabnaa, in lagu dhaho system dadka ay u siman yihiin rabnaa, in lagala hadlo equality iyo justice, sinaan iyo cadaalad. waxaas oo dhan ayaa adiga lagu keenaa. ayaga dhexdoodana kama jirto, women's quota kama jirto, dumarka qoonda ay leeyihiin ma jirto, ma ogola dumarka inay horumar gaaraan ama kursi ay helaan. tusaale hadda haddaan ku siiyo Hillary Clinton waxay u tartamaysa madaxweynaha Mareykanka, State Department-iga markay ahayd secretary-ga xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ahayd, waa loo diiday, waa la hor istaagay. dadka Mareykanka degan
haddii ay sinaan jirto ama equality ee madowga ee black americaniska xuquuq ma lahan waad ogtahay Dr. Martin Luther King iyo inta ay u dagaalamayeen muxuu ahaay markii ay civil liberty-ga laga hadlayo muxuu ahaay cadaaladda iyo xuquuqda iyo xaqa dadka madowga Obama ilaahay nasiib u siiyay inuu xukunka yimid imaado maahane ma aysan ogoleen qof madowga ayaga marka la joogo xaggooda marka waxay tahay horumarinta qofka Amerikaanka darajisiinta ilaalinta xaqa iyo xuquuqda uu leeyahay amnigiisa muxuu ahaay waxaan ka hadlaa dimuqraadiyadda amnigiisa damaanad qaadeen caafimaadkiisa waxbarashadiisa muxuu ahaay jiritaankiisa iyo horumarkiisa ayay damaanad qaadeen marka la joogo shiinahana waxay sheegay ama ay muujineen muxuu ahaay tartan iyo furnaan iyo competition iyo ganacsi iyo muxuu ahaay wax wada qaybsi iyo tartan iyo sarreyn marka bariga la joogo iyo Middle East-na waa danaha Israa'iil in la hormariyo in muxuu ahaay aragtida Israa'iil meel sare la geeyo marka waxaas oo dhan ayay noo sheegayaan leadership modelka kale waxa waaye leadershipka la yiraahdo muxuu ahaay transformationalka anaga marka midaan u baahanahay haddaan Soomaali nahay dhaqankeena iyo diinteena iyo mataqaanaa muxuu ahaay caqiidadeena ka turjumayo waxay tahay muxuu ahaay inay tahay muxuu ahaay wax la yiraahdo transformational midda ku dhisan isbedelka iyo horumarinta ayay keeneen marka waxaa la rabaa midaas waxa waaye in cadaaladda laga shaqeeyo sinaanta iyo horumarka laga shaqeeyo midda u dambaysa rabo inaan ka hadlo xitaa dictatorship-ka dadka Soomaali waxay aaminsan yihiin dictatorku inuu yahay mid wax burburiyo oo wax qaribo dictatorku marka la hadlayo ase mataqaanaa political ahaan ama siyaasad ahaan waa nin wax dhisa waay muxuu dhisaa xukunka ku qabsado xoogga ku qabsado ama hala doorto dad qaas ha doortaan ama dhaxal ha ku helo laakiin waa nin dhiso oo la jecel ee ka haysta dalkiisa waxa dalkiisa oo haysto inuu wax ku daro ka shaqeeyo laakiin haddii uu wadankii khayraadkiisa ama wixiisa uu xadaayo kaas dictator maahan ama dictatoric maahan waxa waaye marka laga hadlayo political termka dictatorship-ka kaasi waa tuug marka macnaha inaan saa u kala fahno ayaa la rabaa daawadayaal intaasaan kusoo gabagabeynaa muuqaalka haddii aad ka heshay subscribe garay channelka aragtidaada ila wadaag videoga like garay share garay markale channelka Runsheeg Media Network subscribe garay inta muuqaalka ku xigay aan isku arki doono waxaan idin rajeynayaa khayr iyo caafimaad. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.